oo qaarkeen ma ogeyn inay rag waraaba yihiin waxay u haystaan nin wanaagsan kam ya cadad baa dhinacyada ku haysto lagaga ku haysto waa ninkaygii wax kasta waan salaaxaya waa ninkaygii ninkaagii weeyaan ilaahay baa kuu sameeyey laakiin ku dadaal in aanu ceebahaaga arag in aanad waxaana social media ugu talagelin aanad u dirin haddaan maanta ka waran intaan mur iska siiyo intaan video iska duubo oon u diro maanaha markaa is xumeeyey dumarow goblan tala adduunya maxay geesi layliday alla maxaan rag lahayn se uu yahay hadda gabal baas noo dume away boqoradaynu ku faani jirnay Soomaali waxay dhaxal u haysatay rag bay hayd hooyada macaan ku dhashayna ya in yar uma naxariisan qubadu halkii lagu golay caw ku hurdaa caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhamay calaykum waraxmatullaahi tacaala barakaatu kulanti wacan wanaagsan daawadayaal ma kusoo dunida daafiyada ka joogtaa mar kale clip cusub halkaad naga daawanaysaa barta YouTube-ka ku leenahay fashion oo walaashin hodan ay la soo dhawaada dhamaatiin waxaan ka codsanay dad channelka ku cusubtana subscribe saarta kabalkan furtisaad noogu noqoto qofka hore daawadaad bad ugu mahadsan tahay inta kadib walaashan fahiima ayaan ka hadlaynaa oo runtii ku dhacday arin fool xun baarin aad u xun ama arin aad looga murugoodo arintaas oo ah ninkii hore ee qabay oo ka faafiyay baraha bulshada ku faafiyay intuu page samaystay ku faafiyay baraha bulshada iyadoo qawan iyadoo uu ka duubay oo is ogeyn waxyaabo badan uu ku sameeyay horta kulay adduunka waa la arkaa oo waxaas oo kale waa waxa la arko mar badanna ku dhacda dumarka Soomaaliyeed laakiin way yar tahay inta nin ee ka duubtay naagtiisa iyadoo ama qaawana mid xubnaheeda jirkeeda qaybo kamid qaawan yihiin ka duubay ama hawba dirtay hadana social media soo bandhigay oo waliba caana way yarta wali maan arkin oo caano sida iyaga loo yaqaano oo sameeyay talaabada ku dhaqaaqay maan arkin horta runtii waxa ayaan darro ah gabadh aad guursatay ku dhaxday ooridaadii sharaftaadii qiimahaaga qadarintii aad adduunkii bulshada yacni bulshada wixii aad ku dhex lahayd ah inaad intaad qabatid aad ka duubtid aad waliba damiirku ku siinayo soo dhigs baraha bulshada taas ayaan daraa khadar runtii qof wanaagsan baa la moodaa waa qof xun intuu qof xun yahay ninka awooday gabadh uu u dhaxday ooridiisa ah intuu clip qaado uu ka duubo ama sawir qaawan oo aan shaxaan ku jirin intaad ka qaadid soo dhig baraha bulshada mad xanuunsanaysa hawayaan miyaa tahay hablaha ceebahooda horta maxaad ku fashaa gabadh ceebteed maxaad ku fashaa gabadh la ceebeeyay maxaad ku fashaa raggu Soomaaliyeed hadda qaybo badan oo waxa jira dumarka ku feegan dumar oo idin kale waxaan oran lahaa rag badan imaka waqtigan akhrisaban weeyaan rag marka ay gabadhooda ixtiraamaya ama qiimeynayaan hablaha Soomaaliyeed qiimaha iyo qadarinta ay lahaayeen ama halkay ka taagnaayeen waqtigaas hadii in lagu xadgudbo dhigiisa huru jiray iska daa ooridaadabe hadda waa gabadh kale oo Soomaaliyeed oo agtaada lagu juqjuqeeyay ayaanu qaadan jiray rageeni hore laakiin hadda waxa jirta nin ku qaba oo ooridiisa tahay inuu intuu ka duubo waliba social media ku soo dhigo wax ka xun wax ka ayaan daraysan ma jirto wala xaqiiqatan haddana waxaan leeyahay dumarow isku badnaada nin kasta ha iska aamin nin kasta ha moodin hogaaga ee ragga kala naqeeya oo ragga kala eega hadaba bilti ilaahay calafkaaga dhiga mid xun ka taxadir oo ka dadaal mahmaaba waxa laga hayay farxiyo kaba yare waxay tiri alista haddaad wax diraysaan wajigiina iyo kala qariya adduunyadiina kale wallahi mahmaadaas waa mahmaa barku hoola wala xaqiiqatan waa mahmaa ku barku hoola marka uu saygaaga yahay hatta haduu ka maqan yahay ka fog yahay dumar waxa jira kooranaya ha ninkaagi weeyaan laakiin ninkaagu ma ahan inaad adigoo qaawan adigoo waxaadoo yacni waxaana ugu talagelin marka horeba social media inaad soo dhigtid inaad ninkaagu dirtid maaha ninkaagu ku qabaa sharaf iyo tixgelin buu kaaga muday
laakiin waxyaabaha qaar in xadadkaa la isla gaadho wax qurux badan maahan wallaahi xaqiiqatan wax qurux badan maaha kolley way jiraan dad ila fikri laakiin waxa ka badan inta kale iga soo horjeeda haddaba inta iga soo horjeeda waxaan odhan lahaa ama iga fikirka gooniya marka aad nin maanta u dirto cawradaada ama ilaahay wuxuu kuugu sharfay haybad kuugu siiyey marka aad ninkaagaba ha noqdo aad la qaybsatay u dirtid waxaad ogsoonataa inaad dhabarkaada iska toogatid si kasta oo aad istiraahad iskaga dhaq ceebtaana markaa dhaqmayso runtii waan ka xumay walaashay fahimo waxa ku dhacay se raggu waa cadow oo raggu waa bahal oo raggu waa waraabe oo qaarkeen ma oga inay raggu waraabe yihiin waxay u haystaan nin wanaagsan kamiya cadad baa dhinacyada ku haysto lagaga ku haysto waa ninkaygii wax kasta waan salaaxaya waa ninkaygii ninkaagii weeyaan ilaahay baa kuu sameeyey laakiin ku dadaal in aanu ceebahaaga arag in aanad waxaana social media ugu talagelin aanad u dirin haddaan maanta ka waran intaan mur iska siiyo intaan video iska duubo oon u diro maanaha markaa is xumeeyey dumarow idinka ceebta idin kortaa dumarow ceebta idinka idin kortaa maanta dad waxun samaysaan ood maanta social mediaha aad ninkiinuba ha soo dhigay la soo dhigo ereyga u horeeya la odhanayaa waa maxay iyadaa naag xun oo dhilaahayda ereyga lagu odhanayo iyadaa naag xun oo dhilaahayda weeyaan laakiin lama odhanayo ninkii kasoo duubay ninkeedu ahaa marka mar laba way ku ceebaysan aad ku ceebaysan marka inaad ka taxadirto sharaftaadu waa marada aad xidhanaysid haddaad ilaalin weydo inay ustag noqotiyo in kale waxaad noqonaysaa qof laciif waxaan idin leeyahay hablow isku badnaada beledkan iyo sanadkani waa akhru sabankii dadkii wanaagsanaana way ka gabagaboobeen haddayn lahaan geesi ceebtaa inanta ka carara haddayn lahaan jirnay geesi hablaha madaxu u saaran yihiin haddaynu geesi lahayn hablaha garbihiisa ku qaada maanta waxaynu yeelanay dumarow waxaynu yeelanay mas guriga kuugu jira si aanad ogeyn inuu mas yahay inuu qof yahay naag walayba ka ogow oo ka fikir ninka guriga kugula nool ha ka fikirin inuu ninkaaga yahay ama uu ku xumaynayo laakiin waxaad ka fikirtaa aanad u ogolaanin inuu jirkaaga xubin ka mid ah uu sawir uu ku haysto mobilkiisa waxaan taa u leeyahay waxay tahay fahimo waxay tiri inta maanta lasoo bandhigay in ka badan buu haystaa siri wuxuu doonaba ha igaga duubee ama haban u dirabe inantayna qadarka ku dhacay waan ka xumahay runtii aad baan uga murugoodo aad baan uga xumahay isagana waxaan leeyahay ninka raggi waa ninka gabadhiisa ceebteeda astura isagana waxaan odhan lahaa ninka raggi waa ninka gabadhiisa ceebteeda astura ee huga saara ee ninka raggi maaha inuu social media intuu page u samaysto soo dhiga goblan tala adduunyo maxay geesi layliday alla maxaanu rag lahayn se uu yahay hadda gabal baas noo dume haweenow aaway raggeeni aaway hadeeyadaynu ku faani jirnay aaway boqoradaynu ku faani jirnay soomaali waxay dhaxal u haysatay rag bay hayd oo maanta nin dhiig leh oo waxaa jiray aan ceeb aad leedahay si kastuu aad isku laysaan si kastood isku garaacdaan aan hal meelo ceebood leeda laga helahayn laakiin hadda waxa soo baxay wax sida dumarka googarada iyo diriciisa u kala saaraya wax ma idiin sheegaa soomaaliya qiimahay soomaali lahayd dib u soo noqda oo ku soo dabaqa arrinta dhaqan iyo xeer waxaynu lahayn haddaydan diin iyo alla toona garanahayn inaan xeer waxayn u lahayn ku soo dabaqa sheekada oo soomaaliya ka kora in hablaha aad ceebeynaysaan eed beejajka u samaysanaysaan eed dhaqan xumada kusoo gelinaysaan iska daaya inaana waa ilmado inaana way ku dhashay way kula dhalatay waana dhali doontaa wallaahi alcadiim waa arrin aan aada uga xumaaday aad baanan uga xumahay walaalo aad baanan uga xumahay walaa xaqiiqatan inay aniga igu dhacday oo kalaan u haystaa waayo kaba dumari kaba isma dheera aad baan uga xumay aad baanan uga murugoonaya khadarna waxaan leeyahay raganimadii iyo soomaalinimadii awowyaasha ay lahaayeen ama ka dhaqan ahaan iyo hidda ahaan aynu lahayn
in aad kusoo dabaqdo xaajada oo aad inantaa waxaad meeshaa geysay ama aad geysay adaa garanaya aad ka saartid kuwa aad ka haysidna aad ka dhidid garaysid social media dambana aad uga baxid ayada ila nolol kuma hadhin waxaan ku leeyahay khadaro haddaad maanta aad walaasha marna ahayd xaajiyadaada marna ahayd ooridaada marna ahayd gaclisadaada aad nolol soo wada qaadateen aad taa ku samaysay hooyadaa macaan ku dhashayna yaa in yar umaad naxariisan haddaad xataa iyada u naxariisan weydo hooyadaadii ku dhashay xataa umaad naxariisan waxaan kuu leeyahay umaad naxariisan waxay tahay marka aad gabadh xumaysay waxaad xasuusatay hooyadaa iyo walaasha laakiin waa wax kuu dhitaysan meelna kuugu jiri doona cuqubadu halkii lagu golay caw ku hurdaa caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhamay wax kastood saa isku dhansiinaysaa waa wax kaasoo ifbixi doona sida ugu dhaqsiyaa badanna kaaga kuugu soo bixi doona waxaad saa u samaynaysid ama aad saasoo dhan xumaynaysid waa wax kaa daba iman doona ee cindigaaga taa ku hay waxaan idin leeyahay ti waa kaliiban aada uga xumaaday aan aada uga dhiidhiyey walaashan fahiima qof kastoo arka kilibada ama sawirada ama waxyaabaha laga faafiyey bifadlan waxaan walaalkaa codsanayaa waa ina walaasheena social mediahay ku jirtaa waa ina ninkeedii sidaa u galay bilaa caleeg maaha ninay la sheekeysanaysay waa saygeedii xalaasha uu ahaa ee ilaahay yidhi waa saygaagii uu ku xalaalsan yahay ka waxaa ku sameeyey marka waxaan idinka codsanayaa cod dheer iyo cod gaabanba waxaan idinka codsanayaa inaad inantaa halkaad ku aragtaan report siisaan annagaa fahiimay ku garab taagan hana u bixin annagaa walaashaaya ha u joojinin wuxuu kaa qaadayaa iska yar wuxuu kugu report garaynayaa iska yar ha u bixin ka soco keep going ayaan ku leeyahay walaalo waxaan leeyahay asxaabteeda qaaliga waad ku mahadsantihiin daawashadaad daawanaysaan sidaad ii daawanaysaan aad baad ugu mahadsantihiin aad baan idin salaamaya waa walaashin hodanoo idin leh waad ku mahadsantihiin daawashadaad daawanaysaan waan isku dhex yaacay runtii waxaan aad uga xumaaday ama aan aad ula yaabay waxay tahay waan arki jiray nin naag aanu qabin nin aan naag aanu qabin ka duubo waan maqli jiray waan dhagahayga in badan way kusoo dhaceen laakiin waxa iga yaabisay nin naagtiisii intuu wax ka dirsaday ama sawir siduu doonaba ha uga baxee sawirro qaqawan social media ku baahiyey ayaa runtii aniga aada iga yaabiyey oo aan la yaabo oon la jiro cudurkii la dubaaxiyey markaa waxaan idin leeyahay waxaan ka dhiibtay waa fikirkayga iyo aragtidayda wixii fikir iyo aragti aad ka qabtaan committeega nagula wadaaga aad baad ugu mahadsantihiin daawashada daawanaysaan maadaama clipku sii dheeraanayo waan idinka mahad celinayaa saad ii daawanaysaan aad baan idin salaamaya halkaas kusoo gabagabeynaya barnaamijka waxaan idin leeyahay waad ku mahadsantihiin daawashadiina subscribe tana nagu dhiirigeliya like badanna saara clipkan aad baan ugu mahadsantihiin waxaan idin leeyahay